كلي سوق كواركيسين حالي تولاق قيبة كميدا برا السوشيال ميديا هي سوق انتي تكتبها waxa ka dhacay suuqa khasaaro weyn oo balaaran ka dhacayo biyaha intii la bilaabay hawsha dawladda hoose ee maxaa dib loogu habeeyay wadooyinka suuqa aroonimadii marka martan waxa la moodaa inuu roob ku daay meeshaas oo roob helay roob inuu diin laakiin waxa weeyaan biyihii ay magaalada keenay kaayaysiga ahaa kalka ahaa inuu aad inoo khasaareen khasaaraha balaaran ee nagu yimid waxa keenay hawsha inoo socotay dib loogu habeeyay wadooyinka suuqa hoose ee dawladda hoose Hargeysa inoo wado anoo ku bogaadinayna hawlaha ay dawladda hoose soo xilqaantay markaa inay suuqa hoose dib ugu noqoto bilicdiisa iyo maristiisa oo fudeydin doonta haddana khasaaraha runtii halka ka soo gaaray wakaalada biyaha ka soo khasaaro balaaran hawshaasna waa hawl socota in badan dawladda hoose oo qaasana waxaanu u sheegaynaa shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta shaqada u wada hawlgalka u wada dhulka jooga inay iska xilqaabaan hawlahaas waayo maanta inaka bulshahaan waa wax aad u adag in biyaha alag dhulka naga galaan wax la qaadan kara ma waan isku noqdaan waxaanu ka codsanaynaa dawladda hoose runtii oo wada shaqayn muhiim ah leenahay marka hawlaha biyaha mashaariicda biyaha Hargeysa ee socda inay tahay arrinkaasi arrin u baahan inay wax iska bedelaan waxaan kala ka codsanaynaa hay'adaha qaranka ee hawlaha ka qayb qaata ugu horeyso ciidamada police taliska police iyo taliyaha police hawlaha hawlgallada caynkan markii fulayaan taliyahan hore waa sameeyay runtii xalayna u gudbiyay warbixinta khasaaraha dhacay inay ilaa la hubiyo cidii khasaaruhu ka yimid ugu horeyso wakaaladu dabcan shacabka kuna qayb ka yihiin in warka la gaarsiiyo hawshaas waxa weeyaan 2 week hor bil hor waa in la soo weysiiyo hadii kale wixii khasaaray dawayna kuma inay khasaareen wakaalada kama khasaareen shacabka reer Hargeysa ka khasaareen dawladda ka khasaareen dawladda hoose ka khasaareen waxaan anaga wada khasaaray weeyaan ma dhinaca kale waxa uu Xuseen dawladda hoose magaalada Hargeysa looga baahnaa in ka hor inta aanay ololahaasi qaadin in ay la soo xiriiraan wakaalada biyaha magaalada Hargeysa si looga gaashaanto khasaaraha dhacay khasaaro runtii laga fogaan karay booha oo waxa laga fogaan karay kolba meeshii shaqo ay ka bilaabay dawladda hoose inay soo weysiiso hay'adaha qaranka sida wakaalada biyaha Hargeysa oo kale ay saameynta ku keenayso shaqadooda waayo maanta Hargeysa ahaan ma hayno biyo aynu daadino amba yani naga khasaari kara waxa kale oo dhacda meel markasto wada laga shaqeynayo magaalada gudaheeda amba qayb magaalada wada laga shaqeynayo in nidaamka biyaha xaafadda ku jira gabigiisaba uu banaanka loo soo dhigo ay xaaraan cagafyada dawladda hoose Hargeysa arrinkaasi waxa weeyaan arrin aynu baahanahay inaynu wax ka bedelno qonnaku madaxaan xukuumadahan iyo dawladahanba waxaanu ka codsanaynaa mas'uuliyiinta dawladda hoose Hargeysa maamulka dawladda hoose Hargeysa yani maanta waxa weeyaan wixii wax qabadka wanaagsan ay doonayaan inay noo qabtaan inaanay noogu darin khasaare aynaan ka soo kaban karin yani inta soo khadacdo waa khasaare balaaran biyaha ka naga laga khasaare balaaran taasoo laga fogaan karo kuba meesha ay ka shaqeynayaan saanin badanna ugu hadalnay in badanna uga codsanay dawladda hoose Hargeysa waxaan ogsoonahay maanta magaalada hawl balaaran ee nooga socoto oo dhuumihii biyaha cusub 162 kilomitir 103 kilomitir la dhigayo 163 kilomitir la dhigay hadeynaan bedelin qaabkeen hawlgaladan u galno kuwaasna waa khasaare ay nagu imanay beelka imika magaalada ku joogo beelo yar laakiin biyo badan bay daadiyeen beelka weynaba jira beelka cusbaba jira dhul badan oo dhigay imika waxaanu markaa ku wacyigelinayna dawladda hoose iyo dadweynaha noocan ku bogaadinayna waxaan ka codsanaynaa in khasaare marka oo degdeg ah noogu soo sheegaan shaqaalaha iyaga goobta jooga ka shaqeynaya runtii maalmihii la soo dhaafay hawsha badan ku dhacdayna inay gacan siiyaan oo ay kaalmeeyaan